Mas'uuliyiinta beerta libaaxyada ee magaalada Hargeysa ayaa bulshada Somaliland ku wargeliyay in mid ka mid ah libaaxyadii ay gacanta ku hayeen oo soo baxsaday habeennimadii xalay, waxaana ugu horreynba dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda lagu wargelinayaa inay iska ilaaliyaan isla markaana ay ciddii aragta ku wargelisay ciidamada booliska. Libaaxan ayaa toddobadii caawa ka baxsaday gacanta ilaalada libaaxyada Cali Warcade. Ilaa iminka lama garanayo meel uu ku sugan yahay libaaxaasi baxsaday. Gawaadhi lagu xidhay makarafoonno iyo sameecado cod dhaadheer ayaa ku wareegaya gudaha caasimadda, kuwaas oo shacabka ku wargelinaya in dadka magaaladu ay hore guryahooda u galaan isla markaana soo sheegaan haddii ay arkaan iyagu libaaxaasi. Mulkiilaha libaaxyada Cali Maxamed Warcade iyo sidoo kale shaqaalaha libaaxyada iyo ciidanka booliska ayaa raacdo ugu jira sidii libaaxaasi gacanta loogu soo celin lahaa ama loo toogan lahaa intaanu bulshada khasaare nafeed u geysanin. Libaaxaasi ayaa ah mid halis badan oo geysan kara dhibaato badan. Dadweynaha ku dhaqan degmooyinka Gacan Libaax, Macalin Haaruun iyo Maxamuud Haybe ayaa markii ay warkaasi maqleen guryahooda ku xarooday. Saacado kooban ayayna cidlo ku noqdeen oo ay guryahooda ku galeen. Mana aha markii ugu horreysay oo goobtani ka baxsaday libaax, waxaana hadda ka hor ka baxsatay gool, taasi oo sababtay khasaare nafeed. Xarunta beerta libaaxyada ee Hargeysa ayaa ah mid ay bulshada ku dhaqan caasimadda u daawasho tagto maalmaha fasaxyada, iyagoo geeya carruurtooda si ay u soo daawadaan xayawaanada halkaasi ku xidhan ee ay ka mid yihiin libaaxyadu. Balse arrinkani ayaa ah mid soo noqnoqday, taasi oo mas'uuliyad darradeeda ay leeyihiin mas'uuliyiinta beerta libaaxyada oo aan iska saarin mas'uuliyad badan.